ستريم نك ويجي افلام تفهم بروج افلام اوكلي كوبا اكي maxaa kaloo ku sidar meesha wow live tv ستريم نك waxa kaloo ka daawan kartaa aflaamta Hollywood Turkish iyo waliba cartooniska ستريم نك waxa kaloo u sidar musalsalada waayaan laga daba dhacay musalsalada Turkida Hindida Mareykanka iyo qaar kaloo badan ستريم نك دhallinyarada sportiga ah waxay kala u diyaarisay kanaalooyinka sportska ahaa sida kanaalooyinka beIN Sport, Sky Sport, Super Sport iyo qaar kale oo fara badan hadaba ستريم نك waxaad kala soo kartaa Google Play Store, Apple Store iyo waliba Android TV ستريم نك waxay caan ku tahay idegso isla hadda idaawo kalona soo booqo website-ka streamnex.tv wixii macluumaad dheeraad ah nagala soo xiriir telefoon nambardan shaashada kuugu qoran السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان صاحبada ku xiran channelka Samnext official fadlan hadii aad tahay markii hore channelka soo booqato subscribe noo saar gambalelkana furo si markasta ay ku soo gaaraan muuqaalada xisaab badan kana ku soo gudbino ana ku maasantahay hadii aad hore noo joogto channelka muuqaalka leeg noo saar sidoo kale si share kale si muuqaal ku gaaro saaxiib badan barnaamijkeena maanta waxa ku bilaabanaa filimada OTT-ga lagu soo fasaxayo September sidoo kale filimadaas waxa uu horeeyay filimka maanta la daawanayo ee lagu magacaabo Baaban ama hogaamiyay ninka lagu magacaabo Gobi Sundar filimkan waxa soo baxay July 29keedii 2020 filimkan dhanka tiyaatarada waxa ka noqday blockbuster filimkan waxa laga leeyahay dhankaasi Malayalam fankada loo yaqaan Mollywood ka filimkan laga leeyahay waa filim isku jira fariimaha kareemka ama dilalka sidoo kale filimkan askari ugu medelay ninka lagu magacaabo Gobi Sundar oo markaa kiis baaraya filimkan waa filim isku jira thriller iyo waxyaabo markaa gadaal filimka laga sheegi doono waana filimada ugu xiiso badan waxa sameeyay dhankaasi Malayalamka filimada laga leeyahay laguma gaaro fanka marka la joogo Mollywood ka dhanka filimada sirdoonka sidoo kale filimada khiyaanada isku jira iyo fariimaha marka dambe baarista laguma gaaro dhanka daartarada marka ka soo jeeda dhankaasi fanka Mollywood ka inta badan waxa sameeyay fariin marka dhanka soo jeedan kara marka la daawadayaasha asxaabta filimkan dhanka tiyaatar wuxuu ka soo xareeyay ku dhawaad ka koror filimka waxa lagu kharash gareeyay ku dhawaad 10 koror ilaa 15 koror balse tiyaatarada filimkan waxa ka noqday blockbuster weyn waxaana ka soo xareeyay ku dhawaad 10 koror oo dhigmata ku dhawaad $6,500 Mareykanka filimkan xisaab badan maanta oo bishii 7 September ay filimkan OTT-ga lagu soo fasaxay waxa laga yaabaa filimkan 4 saac kadib ama caawin marka af Soomaaliga helo shabakadaha kala duwan marka soo tarjumaa ugu horeysa shirkadda caanka ah Family Production sidoo kale waxa ku xiga filimka Malayalamka laga leeyahay hogaamiyay ka yahay Tofina Thomas filimkan xisaab badan waxa lagu magacaabaa Thulumala waxaanu soo baxay sida hore kuugu sheegnay Agosto 12 filimkan tiyaatarada loo saaray xidigan waana filim xisaab badan marka tiyaatarada ku qabsaday sidoo kale filimkan dhanka tiyaatarada waxa ka noqday super hit weyn isagoo marka ganacsiga soo xareeyay ku dhawaad 45 koror filimkan lagu kharash gareeyay ku dhawaad 15 koror ilaa 10 koror inta badan filimada Malayalamka lacag aad u yar ayaa lagu kharash gareeyaa kadib tiyaatarada filimada waxay ka soo xareeyaan lacag aad u fara badan oo marka tiyaatarada dakhli fara badan ay ka soo xareeyaan filimka Tofina Thomas maqaam sare ayuu ku gaaray maadaama filimkan lacag fara badan ka soo xareeyay tiyaatarada xidigan waqti fiican ugu jira maadaama filimada isugu dambeeyay actor-kan ahaa filim classic sidoo kale ganacsi ballan tiyaatarada ka sameeyay waxaana filimkan tarshaqwadka gabadha lagu magacaabo Kalyanai Piratation xidigtan waxa ka soo muuqata filimada kala duwan ee markaa shabakadaha kala duwan ee markaa koonfur Hindiya xidigtan waxa dhalay director-ka markaa Bollywood ka laga dambeeyo lagu magacaabo Piratation ee xidigtan aabawa sidoo kale filimkan Shantom oo markaa jaga ka soo muuqda filimada Malayalamka ee filimka doolada awood badan filimka kuma taliya ana xifaaltami doona Tofina Thomas asbuuca kan waxa soo bixi doona filim xisaab badan noqon lahay Baaban iyo filimka lagu magacaabo Thulumala asxaabta hadii marka filimada hadii marka lagu turjumo af Soomaali wax soo dhigi doona groupka Telegram-ka ku leenahay Family Entertainment halkaas kala socda waxa ka soo kordhaa Flantan sidoo kale waxa soo qaadanayna filimka xisaab badan hogaamiyay ka yahay actor-ka lagu magacaabo ama megastar-ka caanka ah Salman Khan filimkan xisaab badan hogaamiyay ka yahay Salman Khan lagu magacaabo Kisiki Jan filimkan xisaab badan waxa lagu dhawaaqay in daaman doono December 30keeda halka gabadha lagu magacaabo Pooja Hajri filimkan ka door muhiim ka qaadanayso ama tarshada filimkan ku matalayso halka filimka ugu batay filimkan uu door adag ka qaadanayo marka shaashad kala soo muuqan doona megastar-ka caanka ah Salman Khan filimkan waxa kale oo ka soo muuqan doona si shaaca laga qaaday gabadha lagu magacaabo Shahnaz Kaur Gill oo marka ka mid ah dadka ugu caansan marka la joogo fanka Hindiya sidoo kale filimkan door kala duwan ay ka soo muuqan doona dadka ugu caansan hadii noqon lahayo YouTuber sidoo kale fanaaniinta ayaa filimka ka soo muuqan doona hadii noqon lahayo Yoyo Honestin oo marka fanaan oo marka heesaha raabka sameeya oo marka door filimka ku matalaya sidoo kale filimkan waxa oray muusiga u garaacay ninka lagu magacaabo Devi Sibal Prasad balse filimkan waxa isku dhacay megastar-ka caanka ah Salman Khan kadib shaqada uu ka caayay sidoo kale filimka waxa lagu bedelay dhanka muusikada
director muusikada hore u sameeyay ninka lagu magacaabo KGF qaybihiisa kala duwanaa directorkii heesi u sameeyay ayaa filimka lagu matalay ama filimka dhanka muusikada u qaraacaya. filimkan hore waxaa loo magac u watay Ciid Kabadiwaali balse filimka hadda shishaaca loo qaaday magac in laga bedelay. sidoo kale filimka hore waxaa u maalgelinaysa shirkadda lagu magacaabo Diwala Control. sidoo kale shirkaddan jab xoog weyn ayaa la kootay maadaama filimada ugu dambeeyay hadda noqon lahayd Pacham Pandey iyo filimkeeda Hero.2 maadaama ay ka fashilmeen shirkaddan waa iskaga baxeen qadaraaskan oo markaa wax ku wareejisay shirkadda lagu magacaabo Salman Khan Film Production ayaa filimkan maalgashatay. waxaa iskale megastar caanka Salman Khan ayaa filimkan maalgeliyay. sidoo kale Farxaan Sanjay ayaa filimkan directorka. sidoo kale filimkan xisaab badan waxaa la daawan doonaa 3 September ama December ayaa filimkan tiyaatar loo saari doonaa. sidoo kale filimkan shaqadiisa way soo ilaatay hadda waxaa lagu jiraa filimka editka ama waa in markaa filimka la tayay hadda noqon la ayada FX. sidoo kale filimkan xisaab badan 3 bilood ugu foodan uu saartay filimka la soo bandhigi doona tareekiisa ama koskoskiisa. asxaabta filimkan waxa ka soo kordhana waa la soo siin doonaa halka kala socdo wixii macluumaadka filimka ka soo kordha. Kisiki Jan ayaa filimka lagu dhawaaqay markaa magaciisa rasmi ah loo diiwaan geliyay. waxaa laga soo bandhigay teaser kooban oo ku xarakeynayo actorka loo magacaabo Salman Khan starka caanka ee Salman Khan laga soo bandhigay. asxaabta waxa ka soo kordha halkan kala socdo filimka xiga soo qaadanayna waxa lagu magacaabo Chub The Revenge of the Artist. sidoo kale filimkan waxa hogaamiyayka Sunny Deol iyo Dalkuur Salman ka yimid dhankaasi Malayalam ayaa filimkan hogaamiyalka halka Buja Patro dhilatay xiddigta caanka Ali Bad filimka doorada ka qaadanayso. sidoo kale filimkan xisaab badan ku xifaaltan doona Sunny Deol iyo Dalkuur Salman. waxa laga soo bandhigay teaser kooban oo markaas waxa laga soo bandhigay koskos ama trailer xisaab badan markaa ku xifaaltan Dalkuur Salman iyo Sunny Deol. filimkan waa filim xisaab badan oo isku keenay jilayaal awood badan markaas dhanka noqolaad Bollywood iyo Malayalam. xiddiga lagu magacaabo Dalkuur Salman waqti fiican oo ku jira maadaama labadiisa filim darajo noqolaad kulub oo sanadii 2020 uu noqday blockbuster weyn. haddana waxaa tiyaatarada ka gadnay filimkiisa lagu magacaabo Sitaaraman Malayalam dhankaas lagu waxaa noqday double blockbuster weyn. actorka waxa ku jira actorada ugu caansan marka la joogo dhankaas Koonfur Hindiya. haddana wuxuu noqday Pan South India star xiddiga la yaqaan dhanka Koonfur Hindiya maadaama film walba markaas laga leeyahay Koonfur Hindiya hadii markaas lagu daawayo luqadaha idil uu ka kagadi karo dhanka tiyaatarada. sidoo kale shacbiyad badan uu ku leeyahay dhankaas iyo fanka talagu. actorka waxa ka soo jeeda dhankaas Malayalam hadda wuxuu soo waday dhankaas Bollywoodka waxaana ku koobsan doonaa filimka lagu magacaabo Chub The Revenge of the Artist oo kala soo muuqan doona xiddiga lagu magacaabo Sunny Deol. filimka waxa ku metelay sida shacala qaada askari booliis oo markaa baaraya nin dambiye fara badan markaa geystay Dalkuur Salman oo filimka ku metelay nin markaa maskaxda ka waalan oo dadka markaa iska dilaya. sidoo kale filimkan waxa shacab laga qaaday marka laga soo minguuriyay filimka Chub marka laga la dhankaas Hollywood ka filimkan sida shacab laga qaaday laga soo minguuriyay ama remake dib loogu sameeyay. sidoo kale filimka sheekaysiisa waxa ka sheekeynaysa actorka lagu magacaabo Dalkuur Salman. filimkan waxa ku metelaya superstar weyn oo marka filimada shanimada la saaro marka tiyaatarada filimka ka gadno oo marka hogaamiyalka inta badan filimada markaas soo baxay marka Hindiya waxa ku aadiya maalmaha fasaxa ama sabtida iyo jimcaha iyo hadda ay filimada ku aadiyaan. filimka xisaab badan Dalkuur Salman waxa ku metelaya nin superstar oo marka filimada markaas uu soo saaro marka qoliyaha filimada ka falaqaya filimkaas aad u jajahayaan. sidoo kale aad u leeyahay sheekada filimka wato. sidoo kale actorkan maskaxda uu shock qaaday. sidoo kale qoliyaha marka filimada falaqaya uu marka weeraraya. sidoo kale maalin walba wuxuu dilayaa qof maalin walba film soo baxaa sabtiga xalaado ku badan tahay film soo baxo wuxuu dilayaa qoliyaha filimada ka falaqaya ama qoliyaha filimada falaya marka sheekada markaas hadday fiican tahay hadii marka xunta uu soo gudbiyo dhanka shacabka si markaas u daawadaan dhanka tiyaatarada u aadaan. sidoo kale actorka lagu magacaabo Sunny Deol filimka wuxuu baaraya kiisaska dilaa oo markaas inta badan ka dilaya. sidoo kale waxa qaban doona Dalkuur Salman ayaa filimkan isku qaban doonaan. sidoo kale waxa kiisaska uu baaraya actorka lagu magacaabo Sunny Deol. sidoo kale filimka trailerkiisa aad ayaa looga helay marka lagu soo bandhigay xaysiiska kooban ee filimka Dalkuur Salman iyo markaas Sunny Deol filimka ugu xifaaltami doonaan. filimkan xisaab badan waxa la daawan doonaa 3 December waana filim ku soo laabanaya Sunny Deol. Sunny Deol waxa uu diyaarsan filimkiisa caanka ah Gardaar oo soo bilowday sanadii 2001 haddana wuxuu sameyn doonaa qaybtiisa labaad oo markaas Gardaar 2. sidoo kale filimkan waxa directorka filimka lagu magacaabo Chub directorka lagu magacaabo balkii hore filimka uu sameeyay dhankaas iyo Bollywoodka. sidoo kale filimkan waxa maalgelinay shirkadda lagu magacaabo Pen Studio. sidoo kale filimkan xisaab badan lagu magacaabo Sharia Darwan ay filimka door muhiim ah ka qaadan doonta. asxaabta filimkan waxa la daawan doonaa 3 December laba asbuuc ka bacda filimka tiyaatarada saari doona. asxaabta filimkan waxa ka soo kordhan waa la soo siin doona halka kala soo wixii macluumaad filimka ka soo kordha. filimkan waxa soo qaadanayna waxa lagu magacaabo Hidden Second Case. filimkan waxa hogaamiyalka xiddigta ninka lagu magacaabo Adi Fishe halka hore lagu magacaabo Meeshana Jawhar filimkan door aad ka qaadan doonto
halka boosani Krishna Murali ee Soomaaliya u taqaan fiigsana filimkan door ka qaadan doono sidoo kale filimkan waa qaybta labaad hore la sameeyay Hidda Fersi keeso markaa la daawaday 2020 oo hogaamiye ka Fishwak Sin hadda qaybta labaad waxa qaatay xidiga lagu magacaabo Adi Fisher waqti fiican ku jira maadaama filimkiisii Major oo daawaday bishii June 3 filimka Major loo daawaday xidiga lagu magacaabo Adi Fisher kaasoo tiyaatarada ka noqday super hit haddana filimkan wuxuu ku dhawaaqay xidiga lagu magacaabo The Second Stage Hidda Second Stage filimka la daawan doona waana filim xiiso badan oo filimkan isugu jira filimada booliska iyo kareemka dilalka la barbaarayo actorkan inta badan wuxuu ka qaataa filimada door adag hadii filimadiisa ugu dambeeyay noqon lahaa iyo Faruuq Guud Ajaari iyo filimka Major actorkan wuxuu qaataa door dhameystiran sidoo kale doorarka uu ka qaato filimada waa filim aad u xiiso badan sidoo kale xidigan wuxuu doortaa sheekooyinka aad ku wanaagsan sidoo kale waxa lagu amaanaa bandhigga markaa ka sameeyay shaashadaha sidoo kale actorkan hore wuxuu sameeyay jiray filimada ay ka nimeeyay ninkaas wuxuu ka soo muuqan jiray doorarka caawiyaasha ama dooraha caawiyaasha oo filim inta badan ka soo muuqan jiray hadda balse wuxuu noqday actor markaa xidiga markaas laga dambeeyay kaasi filimada Telugu ama faka loo yaqaan Tollywood haddana wuxuu ku dhawaaqay filimkiisa xigay ee lagu magacaabo The Second Case ila daawan doono dabiiqada sanadka 2020 balse filimka wali shaac laga maqaan xilliga rasmi ah la daawan doono balse filimka saddex bilood ugu dambeysay filimkan xisaab badan lagu dhawaaqay xilliga rasmi la daawan doono saxaabtu waxay ka soo kordhay filimkan wala soo siin doona halka kala soo macluumaad ka soo kordhay filimkan falna hadii muuqaalka ka heshay lagnoo saar وانا كما سنتي داوشة المقال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته